No, but I just salam alaikum. Walaikum salam. How y'all doing? What you guys? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video. Today waxaan rabnaa ka hadlo and there was another video aan sameeyay later on short kahor oo ka hadlayso sida aan barto luqadda Ingiriisiga ama abkayga caawi luqadda Ingiriisiga. Dad badan waxay soo qoraan abay abku nooma shaqeynaya, abku lacag miya, abku ma dating miya, what is it, you know? I know there's so many questions. Dad badan ay soo codsadaan inaan muuqaalka soo sameeyo abka sida loo isticmaalo, sida maartay login-ka waxyaalahaas dhan loo sameynayo. Intaan muuqaalka bilaabin waxaa rabaa inaad sameysiin videogan ilaa dhammaadkana daawatiin. Maybe wax laga yaabaa wax skip garaysid hadana lagu soo laabtay dhacdada maxay ahayd saan ima shaqeyn waaye. Maybe wax laga yaabaa su'aalo ka cusub haysiin, so make sure you watch to the end ilaa dhammaadkana daawatiin. First question oo lisoo weydiiyay waxa wata abka lacag buu rabiyaa. Abka maxay free ma aha? Yes, abka waa free. Anaa soo isticmaalay. I've used it 3 years, 2 years camal meelahaas isticmaalay. Abka waa free. Completely free waaye. I don't know maybe abka kalta khalad gashan. I don't know. Second question waxa waaye abku ma dating miya? Maxaa waaye abku, you know, dad nooc ku jiro wato wiilal kabdho different age ba ku jiro. But I would say dadku maartay qof oo 30 jir aan wali ma arkin, you know, dadku waxa waaye 25 meelahaas u dhaxayaan. But it doesn't matter, you know. Age mention abku ma xirno bas una waxa ka rabiyaa ina over 18 tahay. Hadaa maartay 17 tahay ama 18 ka yar tahay, you cannot join because su'aal ku weydiinaya marka galaysid. Dadka isoo weydiiyay dadka waxa jira isoo weydiiyay abku ma dating miya, what is it, abku waa dating adduun lagu soo qariyay. Aan waxa u gal abkaas just luqadana ku barto. And also marka abku soo degsanaysid waan tusaasu. Marka aan abku soo degsanay app store aan gal wax ku qoran how can chat, meet and make friends, you know? You can chat with people and then make friends. So okay, camera sorry guys. Marka you can make friends. I don't think dating has, I think there's an option, but that's the other mesh and you're there to learn English, you know? So midda kale do we have another question? Kan wuxuu ka rabiyaa and one thing aan ii sheegaya. So haddii wajigaaga iyo sawirkaaga islahayn da'da ku weydiinayaan, you know, marix ku dhahayaan, you know, telefoonka isku aadinaysaa waxaan u dhahay wajigaaga iskaan garanaya or something like that. But that's just maxay ahayd waxa waaye in age-kaaga, you know, age-ka sheegaysid iyo inay isleeyihiin wajigaaga, you know. But usually ani ma weydiinin ID. Haddii ku weydiiyaan ID barkort waa la weydiin jiray. Sometimes way ku weydiinayaan, sometimes kuma weydiinayaan. So haddii ku weydiiyaan waa inaa maartay sawirkaaga ama ID-kaaga sawir yar ka qaadid. That's it. That's all you need. Maartay meesha ma soo dhigayaan bas waxa for security reasons, you know. So marka waxaan tusayaa app-ka, you know, meesha application ku soo degsanaysid App Store ama Play Store, both of them wuu ku dhex jiraa. Waayo Samsung telefoon Samsung waa ka fiiriya, anu iPhone baa isticmaalaa. So app-ku kaas saas buu egyahay. Maybe super mujeedin, so I'm gonna show you guys. Okay, app mujeedin. Okay, Youbo lahaa xagan aan igu soo qoraya. So that's the app basically. And waxaas jaalaha ku soo oran, you know. Marka ani app already waa soo dhagsaday login waxaas loo dhahay. Marka waxaan sameeyay marka login dhahay waxaan sameeyay screenshot ka qaaday. Marka app marka gashid waxa ka soo baxay dadka ka soo dadku qofku isku bedelay amaanto meeshan saaran. So two options ku yaala meeshaas. Two options waxa waaye continue with Apple ID login ka soo dhaysid si telefoon soo noqoteen. Ama waxa ku soo baxayso log in hadaa account already ka haysatid. I don't think you have because of cusubtaa, you know. Marka kadib next step waxa ku soo baxayso marka Apple ID ku dhusatid waxa ku soo baxayo log in ama create account. So waxa ku samaysaa create account cusub samaysanaysaa meesha cadaanka marka ku dhusatid magacaaga, you know, nickname-kaaga magacaaga aan misxaawa galiyay. Marka kadib wuxuu ku diinaa dhalashadaada. Make sure dhalasho fake ma galin kartid waayo way arkayaan, you know. Hadda wajigaaga waxa isku qiimeynayaan. So dhalashada saxda gali. Dhalashada marka galiyay kadib waxay weydiiyaan waxay ku weydiinayaan gender-ka ku weydiinayaan female, male ma tahay, you know, gabar baa tahay hadda wiil tahay wiil ku dhufsan. Marka kadib magac samayso. Marka aan misxaawa ku qortay ama haddii magac ku hadduu guduud noqdo macnaheedu waxa magacaas ma isticmaali kartid. You can use something else.
usually magacaaga isticmaalan, you know. And then dhalashada marka waxaa gelisid xaggan imaanaysaa ku dhahaa xaggan waxaa waaye sawirka oo you know dadka ta arki doonaan sawir yar saaro oo adi ah marka kadib at least marka bilowga sameynaysid sawirkaaga saaro and marka magacaaga sameynaysid saasuu noqonaya cagaar you good to go. marka ana hadda waa kana aan samaystay mujidin so magacayga aan saartay sawir yar aan saartay aniga marka kadib waxay weydiiyeen genderka waxay ku dhahayaan what kind of a friends asxaabo nooca rabtaa ma xartaa wiilal bas ma gabdho bas ma both of them ani both of them aku salawada ku dhufsaday waayo mix baraba you know dad la hadla marka waxaa ku siinaya option inaa maartay Instagram-ka snapkaaga saartid you don't have to it's optional ana ma saarin marka xakan waxaa notification ku xeelad arabtid you know new friends hadii asxaabo cusub kusoo darsaan notification heshid iyo waxyaalahaas oo dhan you know friend request xagan I think it's people skip this but like in ama maartay waxyaalaha jeclaan ku dhufsada kubad jeceshahay hadaa movies jeceshahay you know whatever it is hadaa hiking jeceshahay anything just ku dhufso waayo waxay sameynayaan based off waxyaalaha ku dhufsatay meeshaas waxaa you know waxaa kusoo darsaan dad oo waxyaalahaas ku tacaamul jecel you know so it's a good way to make friends I'm just practicing marka kala raas noqonaya and then you go next and ugu dambeyn waxay ku weydiinayaan you know ina location-kaaga furtid you have to ina allow the location-kaaga hadaa location-kaaga diidid kuma shaqeynaya so marka allow locations at all times marka waa kana marka hawshaas dhan soo dhamaatay waxay ku dhahayaan waa inaa maaragtay age-kaaga you know verify ku sameynaa age-kaagana isku hubiyaan ay rabiyaan so waxay rabiyaan inaa at least aa noqotid from 18 inaa keenan till 24 I don't know any age had this semina umale maybe 24 again but before anyone could use it you know so marka waxa leeysa accept hakan oo ku accept and then when you accept waxa ku soo baxay isaan camal qaadid marka xagan areadan mujeedin waana wajigina saa ugu aadisin telefoonka oo xagaas maartay wajigina iyo meesha ka sawirka ka isla kaataan marka kadib start badaysa meesha start ba ku dhusanaysaa ayaga automatically qaadaya sawir you know and sawirka markay qaadana maybe 2 minutes not 2 minutes hatta sometimes quicker ay sameeyaan bas waxay ku dhahayaan age-kaaga maartay verify waaye age-kaaga waa okay you know and haddii wax ka khaldan yahay sawirka iyo age-ka sheeganaysid waxay ku dhahayaan rejection ku siinayaan laakiin haddii maxay ahayd oo there's no issues dhawaato ku arkin oo sidahan qofkan da'diisa iyo maartay wajigiisa isla again kuwa mashquulan you know ba haddii kuwa mashquulan wax ku dhahayaan waxa u baahan tahay inaa passport ama maartay any ID ama driving license you know inaa soo saaratid aad tustid inaa cadaysid adi iyo qofkan aad tahay waayo sometimes maartay waxay aaminsan yihiin inay ilmo yar ma rabiyaan you know ama soo galan so marka abka hadda caadi u dhexgalaya marka abka caadi u dhexgalaya wakana dadkan ka soo warbaxay wata dadkan oo saa loo skip gargaraynaya ka soo warbaxay you know that maybe wax laga dadka waa daas u aaminsan yihiin inaa maartay dating app but it's not dating app that you can make friends you know anu waxaas ku mashquulo waayo anu waxaan tagaa meesha yarta mujeedin xagga so xagga markaa ku dhuusatid waxaa kaa soo warbaxay ka hadalkii you know mujeedin dadka kaa soo warbaxay xaggaas hadaa ku dhuusatina mujeedin xaggaas hadaa ku dhuusatin meesha koro waxaa bedelaysiin wadamooyinka arabtiin aad hawtiin marka meesha markaa ku dhuusatid waa kaa mujeedin aan hadda America ay ku dhuusan yihiin hadda American ku dhuusaday waayo I like American people aan la sheekaysto hadda calanka ku sii dhuusatid dad badan calmiin badan wadamooyin badan u jeednaa marka saas way mujeedin different countries and I just want America so waxa ku dhuusanaysaa apply ku dhuusan kada ku ka live ku jiraan so many dad badan ku jira live mujeedin dad badan ku jira so hadda for instance waxaan sameynaynaa kuwan u galaynaa kuwaas u galaynaa qolkoodan galaya you know I miss Cali so much. You used to be out there? That's my second home for real. marka waxaa sameyn kartaa you can join them waa join garan kartaa xaggaas Okay, you went Empire. meesha taa mujeedin
gacanta You're a kan little jira ghetto then. IE is not ghetto. gacanta isku You're, dhufsanaysaa okay, yeah, you're not from out there then, because that shit is ghetto as waan ku fuck. dhufsa hadda I hope inay soo aqbaleen sometimes way kusoo aqbaleen maybe the sometimes kuma part soo you was in aqbaleen probably wasn't ghetto, so but markaysan It seems so like waxay dhahaan soo gal maguda hadda aan wax ku galayaa mayka ku galayaan like I don't know, but I just salam alaikum. وعليكم السلام how y'all doing I almost said that. I know. what you guys you from the ghetto yeah I'm sure okay marka aan hadda wakaas saaranahay waa la sheekaysan karaa you know and mood baan galay right now and waxaa sameyn kartaa sometimes you can open your camera but like why would you open your camera kamarada uma baahan inaad furtid you just join them waa la sheekaysanaysaa si u hadlaan dhegeysa xataa sometimes haddaa rabto inaad iska tuurto abka haddaa rabto inaad ka degto qolka oo just inaad dhegeysta rabtid waxaa ku dhusanaysaa meesha artaan meeshaas waxaa sameynaysaa marka meesha ku dhustid way kaamu jeedaan asxaab meesha ta extra yartaa xaggana taabanaysaa extra yartaa taabanaysaa and then waa ka baxaysaa and then leave ku dhufso anada leave dan ku dhufso kaas waa ka degay saddexdooda bas aa saaran just to show you guys way badan live-yinka saas u badan ujeedin like live-yin badanaa jiro so sometimes xataa dadka marka kugu soo darsadaan hadda xaggaasa joogna ma ahno xaggan haddaa ku dhufsatiin chat keerka haddaa ku dhufsatiin dadka waa la chat kareyn kartiin haddaa qof kugu soo darsado qofkan see loogu darsadaa aad ujeedin dhinkan kaamiradiisa u furan waxaa ku dhufsanaysaa xagga yarkaa kale ku dhufsanaysaa qofka sawirkiisa ku dhufsanaysaa marka kadib xaggan hoosaa ku dhufsanaysaa add friend hadda anikaan ku darsanaya ujeeda wakaan ku darsaday yellow buu ahaa cadaan buu isku bedelo micnaheed waxaa ku dhufsaday haddaa rabo delete friend waa ku dhufsan karin marka kadib asaa kusoo aqbaleen you know ama iyadaa kusoo aqbalayso so yeah guys saas baan u abka u isticmaalaa dadka la sheekaystaa chatting garaya everything and I feel like wallahi it's so nice because different accent baa maqli kartaa dadka la sheekaysan kartaa weliba dadkan kaama daalayaan because waa dad meesha wax usoo galeen la iska qarxaysto la iska sheekaysto and anu waayo waxaan jeclaa you know lahjada waxaan jeclaa Americans waan jeclaa so that's why always Americans meeshay ka hadlaan bis una dhegeysan jiray debates baa dhegeysan jiray also meeshana abkan Soomaalida ku jirta like meesha Soomaalida ku jirta ka carara guys because Somalian they just talking wallahi nothing else marka adu luqadda dartana baratid waxaa kursan kartaa UK darabti British accent Australian xataa waa arkay accent you know waddan kastoo dooran kartaa any luqad even if you want Sweden you want Spain whatever it is waa ku lugsana waa isticmaale and that's how it is wallahi dadka iskaas chatting garee haddaa taa qofka qoraalka aragtina dadka ku barbaratid la chatting garee hi how you doing everything u qoran haddaa rabtid sidoo kale cidna kuma garanayso they don't know you isku waddan ma joogteen it's online haddii kaleta guys another thing baan garanayaa dad waxay sameeyaan VPN ba isticmaalaan waan soo xasuustaa qof aan abkan kala hadlay bir walba waxaan ku dhahay where do you live markaasi waxaan isku dhex galnay she was like waxaan joogaa Kenya joogtay gabadho you know and her English was so good mashallah Kenya joogtay but her VPN waxay ka dhigatay VPN isticmaash waxay ka dhigtay locationkeeda inay joogto America meelahaas you know so VPN waa isticmaali kartaa I think some VPNs free wajaan anu VPN waxaas dhuma isticmaalan anu meesha waddankan joogun lacaad kusoo dhex galaa so it doesn't matter anywhere waa join garan kartaa you know xilli kastana abka waxaan la yaabay ma seexatay ma soo kacday dad kasta ku jiraan maybe isku same dad ma aha adoo hawshaa qabsanaysa oo trainka iska dhex jirto iska dhigayo so just listen to what they are saying you know marka abkan maarta dadka kama nastaan oo kusoo jeedaan I don't know habeen iyo maalin u shaqeynkan waxaa laga yaabaa maybe different people you will not get tired wallahi kama daalaysid because different people baa la hadlaysaa haddaa rabto subaxdii dadku saas life ugu jiraan darabti galabtii saas life ugu jiraan anytime so you have no excuses aan luqadda baran marka you have no excuse inaad dhahdo oo ma haysto friends ama asxaabo English kula hadlo asxaabiga dhan maaragtay af Soomaali ku hadlaan ama luqad kale ku hadlaan they don't want to speak English with me you have maxaa telephone buu ilaahay ku siiyay you have technology maalmaan haysana wallahi alxamdulillah abiyeen waxaas ka jira saan oo dadka iskala sheekaysanaysid so use this ma baahnid wallahi inaad qof oo you know in real life la sheekaysatid and through online just wala sheekaysanaysaa and these people are dad real you know robots ma aha dad caadi waxay ka hadlayaan wax you know quman bay ka hadlayaan it's not just you know
how are you waxyaalo badan debates ku jiro, good topics ay ka hadlaan jiro. It depends qolka gashid, different qol haduu qolku cajin qolka tag, you know. By the way, video is sponsored ma aha, so I'm not getting paid. lacag li uma siinaa maaragtay appkan xayisiinayo, just wallahi genuinely ana appkan side buu caawiyay, and I hope inuu idinka caawin karo. waayo ana asxaabiyiinka badan haystay, you know, beriga luqadda baranayay, you know, marabin English ku hadlaan, waxay rabeen bas in af Soomaali ku sheekaysano iyo luqad kale asal naqaanay. And I was like, you know what, maybe uma baahani dadka in real life, you know, kula sheekaysto. I can speak to them online, telefoonkayga bas un lagu filnaayo, appkaas bas inaan isticmaalo. So appkana waa free, dadkuna anytime bay ku jiraan, so dad ma waayeysid, dad alla hash ma waayeysid, just adu un la limit isdhexgelinina dhihin, oh my friends are not speaking this and that. You have this app, and I hope appkan inaa maaragtay wax ka anfacdid. I made good friends,